Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibkiin xirsi. Guys, waxaan rabaa caawa inaan idiin soo bandhigo oon falaqeyno been ka mid ah beenihii fakaday. Beentaasoo ah dowladdii kacaanka inay tahay dowladdii qortay luqadda Soomaaliga maanta la qoro oo Laatiinka ah. Lagu hadlo lama dhihi karo, luqadda hore loogu hadli jiray, laakiin qaab Laatiin in loo bedelo. Listigan horta aan idiin soo bandhigay waa guddigii ka shaqeeyay luqadda Soomaaliga qoristeedii. Nin walba faro soo bandhigay, although aakhirkii 2 nin fartooda la qaatay. Raggii guddiga ahaa ee qoraalka soo bandhigay aan isla eegno insha Allah, kadib aan galaynaa wixii caddeena aan ku beeninayo in dowladda kacaanka fartan Laatiinka horteed la qoray in kale. Shiro Jaamac Axmed iyo Cabdi Khayre Cawaale iyo Xaliimo Maxamed Cali, Muuse Galaal, Sheekh Axmed Imaan, Ibraahim Xaashi Maxamed, Maxamed Cabdi Khayre, Xuseen Sheekh Axmed Kadare, Cabdiqaadir Cadde Maxamed, Cabdiraxmaan Qaadi, Cusmaan Yuusuf Kanadiid, Mustafa Sheekh Xasan, Daawud Maxamed Timayare, Cali Sheekh Cabdul Qudbi, Xuseen Xaashi Halaag, Maxamed Jaamac Salaad, Qaasim Hilowle, Maxamed Maxamuud. Intaanoo ragga iyo dumar isku jiro waxay soo bandhigeen far qoraallo kala duwan. Although listigan hoose badankood ay soo bandhigeen far midda Cusmaaniyiinta iyo kuwo kaloo shabaho oo alifbeetikalkeeda waxay wato iyo far walba qoraalkeeda xilliyada soo bilowday. 61, 60, 60, 58, 1928 qofkan 1928 waa Daawud Maxamed Timayare, tiisa xoogaa ugu da'weyn 1928 20 ka da'weyn maasha Allah. 20 waaye Cusmaaniyiinta oo Yuusuf Kanadiid 1920 afartan qoristeeda la bilaabay. 1930 61 52 okay. Marka midda 28 iyo midda 20 ugu da'weyn, inta kale waa 50 iyo 60. Fartan kuwa la qaatay Laatiinka la qaatay ragga soo dhaweeyay ama ragga qora waxaa ka mid ah Shiro Jaamac Axmed iyo Cabdi Khayre Cawaale. Ayadan ugu dhow far ahaan macnaha waa ba'taja xa da'ra iyo noocaas u qoranta ma fahante. Shaqalkeedana waxaa waaye a e i o u oo ujeednaa malena ma fahante. Marka waxaan rabaa inaan u gudubno hadda kan waa alifbeetikalkii iyo wixii ay soo bandhigeen ma fahante. Kadib dowladda go'aamisay Laatiin la qaaday, wax la qaadana dowladda go'aan kale, dowladduna waxay go'aamisay in Laatiin la qaato. Okay. Marka waxaan rabaa dadka hadda waxay dhahaan dowladda kacaanka Laatiinkan macnaha sameysay, guddigan isku keentay, guddiga soo saaray farta Laatiinka in la qoro, dowladduna way ansixisay. Ana waxaan rabaa guddigan iyo dowladdaba in hortood la isticmaali jiray luqadan Laatiinka inaan caddeeyo. Hadda Laatiinka labada nin keeneen waa 1960 ilaa iyo marka farta la ansixinay 72 inta u dhaxaysa fartan lagu qoray da'deeda farta Laatiinka sida buugga caddeynaya. Okay. Waxaan rabaa inaan isla eegno marka source kala ahaayo. Tan waa mid ka mid ah caddeyntii. Kan waa Journal of Oriental Research oo Indian Antiquary. Wuxuu soo baxay 1887 oo soo baxay. Article-kan cilmi baaristan lagu soo bandhigay maxaa la leeyahay sheeg India oo 1887 la qoray. Aan rabaa inaan isla fiirino. Ma fahante. Bismillah. Alifbeetikalka iyadoo Carabiya, iyadoo Soomaaliya, iyadoo English ma fahante. waxaan rabaa markaan inaan tuso jumlada Soomaali caadi. Hadda ka Carabigan wuxuu u qoran yahay Soomaali caadi ahaan ma fahante. Laakiin waxaan rabaa inaan tuso ana Carabi danka ma lihi. waxaan rabaa soo alifbeetikal inaan tuso rabaa oo soo Laatiin inaan tuso. Marka Laatiinka asla eegno. Hadda qofkan fiiriyo number 13 afka Soomaaliga ku hadal Allah oo jida mulena afka Soomaaliga ku hadal
Number 4 waxaan ku jawaabay aniga ku hadli kari maayo. Iyaa ku baray afka Soomaalida. Macnaha afka Soomaaliyeed adiga yaa ku baray. Iyaa ku baray afka Soomaaliyeed. Okay. Aniga ma aqaan. Macnaha adiga magacaaga ma taqaan alla mugti. Magacayga ma taqaan. Magaas wuxuu aniga ma aqaan. Okay, leenka kale isla fiirino. Aqalkaagii baan tagayaa. Xagee tagaysaa alla mugti? Aqalkaygii baan tagayaa. Macnaha gurigeygii aadayaa. Ma fahanti? Biyaan doonayaa. Number 9 fiiri. Biyaan doonayaa. Number 8 muxuu leeyahay? Waxba dooni maayo. Macnaha maxaa doonaysaa inta la waxba dooni maayo. Okay. Waxaan rabaa inaan isla eegno marka iyadoo Laatiinka hore u shaqeey jirtay haddii dad gooni labinta sheegtaan ka waran soo qalad maaha. Adiga imise jir baa tahay iyadoo Carabi soo jeedid. Carabigii hore Soomaalida hore macnaha markii qaabka Carabiga u qori jireen adiga imise jir baa tahay. Adiga imisaad jirtaa iyadoo in watana. Ma fahanti? Marka kan waa Arabic to English. Waxaan rabaa isla aadno Soomaaliga caadiga. Faraskaygii kaabo wuxuu leeyahay waan kabanayaa. Maxaad keentay? Waran wanaagsan ii keen. Macnaha waran wanaagsan ii keen. Dirmaan doonayaa. Dirmo. Ma fahanti? Wuxuu leeyahay ma taqaan. Macnaha qofkan wuxuu leeyahay ma taqaan. Qofka la su'aal weydiina. Mindida mataadi baa mujda. Mindida mataadi baa. Haa. Waxaa anaa leh. Soo mujid. Magaalada bun badan ma leedahay. Awrka kaad kasi waa imisa. Meesha biyo macaan ma leedahay. Biyo macaan meesha ma leedahay. Goobada meel biyo dhanaan degani ahaayeen. Maanta suuqiyaan ku arkay. Marka adiga wax ma iibsanaysaa? Hadda fiiri number 11. Adiga wax ma iibsanaysaa? 20 wuxuu leeyahay haa waa iibinayaa. Adiga wax ma iibsanaysaa? Number 19. Adiga wax ma iibsanaysaa? 18 wuxuu leeyahay adiga imise jir baa tahay. Marka muhiimadda waxay tahay haddii Laatiin hore u qornaa jiray way credit loo sii waayay dadkii hore luqadda baaris uu sameeyay Laatiinka in waxaan soo qoray way looga dhigay kaliya dawladda kacanka iyo ragga guddiga ahay. Okay. Waxaan rabaa inaan isla eegno. Asigana waxaa la qoray 9 bisha 2 1898 ama 2 bisha 9 1989. Kafarkiisa u jeedin waa old book. Waa isla eegaynaa. Somali to English oo jeedin malena. Somali English Somali dictionary. Kan dawladda Ingiriiska aan diyaariyeen. Marka kan mostly wuxuu noqon doonaa dictionary ereyga gaaban waxa sidii keeda jumlada inaan arkin laga yaabo jumlad badan aan lahayn. Read halahan instead of halahan. Way wax macquul ah raadinayna jumlad aan fahmi karnaa raadinayna. After read beri dambe soo gido beri dambe. Beri dambe nool jira madbax masbax jalbeebo jalbeekay waxa la fiirina marka xuliyada Somali English vocabulary isla fiirina marka meesha waxa ku jira hada garan karnaa wax ku jira malaha aan ka raadino jumlad ku badan yihiin berbere agoonadu way ku badan yihiin wakana berbere agoonadu way ku badan yihiin or berbere agoontu way ku badan tahay war berbere waa agoon badan tahay. Imagine axdi eebahay inaan ka kowsin I swear by God that I will kill you. Inaan kawkaasin haa macna axdi eebahay inaan kawkaasin ujeedido waa la isi hadiyay oo dagaal ma jiro. I made a treaty that we may not fight. Kal horeyno is axdinay laakiin axdigii waa adigii beeniyay soo mujeedid. So marka fartan waa lagaga horeeyay way baashi
marka wax academic laga hadlayo waxaa fiican dadka libinta iskale in libinta la siiyo, in qolo gooniya loo aaba yeelo bahasha ayaga samaystaan maaha, taariikhda ayaa laga been sheegin guys. Luqadda Laatiinka dowladii kacaanka ka hor ay qorneyd, dadka been iyo qubx ayaa lagu shubay. Soomaalina waxay dhahdaa been raad ma leh. Maamaha kale waxay ahayd been fakata run ma gaarto. Marka haddii 80skii 1898 ka kooban maxaa la dhahaa ii sheeg, iyo kan oo asna 87 la qoray, labadanba haddii ay Laatiin ku qoran yihiin oo la fahmi karo weliba, imagine marka dadka sheeganaya luqadda haddirtaan oo dhahaya dowladda kacaanka samaysa, dowladda kacaanka saana. Dowladda kacaanka dadaa waxay moodaan macnaha inay wax walba ayada bilaabato horteed Soomaali jirin.